السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتو حينو سورة كشي إن أنا ورئيسي اللي يلانو بشير عبد القادر بوطان بشير نفقه أو يسو كميت سياسيين تقرب جوجة كاسو مارك تيمانتا أنكو بوقناي حفيسو كلية هاي مقالة زورق دالك سويسرلاند. بشير maaragtay markuu ugu horeyso waxaan leenahay waa ku mahadsantahay soo dhaweynta aadna soo dhaweysay iyo qaabka aad nooga aqbashay in maaragtay wareysiga aad naga ogolaatid. ugu horeyntii Bashir waxaan jeclaan lahaa in maaragtay faahfaahin aad naga siisid mise aad noo soo maaragtay ii sheeg adiga cabirtid siyaasadda Soomaaliya xilligan qaabka ay ku socoto. dad badan ayaa jahwareer ku dhacay oo la yaaban dowladda Xasan Sheekh hamigii iyo rajadii dowladnimo ee dadka Soomaalidu ay ka lahaayeen iyo xilligan maaragtay qaabka iyada ay u shaqeyso. bal adiga ayaan ku deel lahaa bal inaad faahfaahin naga siisid arintaas. ما شاء الله ودوهي مركو غوريسو وسلاميا متقانا فهد حقيقي سوماليا قفل بوكو درسين لكن سياسة سوماليا ومارتي مربى مرحلة دي جوجتي سوماليا قفل برجاء وكلية هي قفل بدكتاي وتاجيا dalkeeni cadow fara badan dulduleelo fara badan ayaa hadda maartay moodaa inay soo wajahday dhan walba haday noqoto amnigii haday noqoto siyaasad arrimo dibadeed oo Ethiopia oo ah cadawgeeni oo ay laftigeeda Soomaaliya dan weyn kale oo ay soo haweysatay iyo waxyaabo fara badan oo Soomaaliya runtii dalka Soomaaliya ka jira haday noqoto amnigii haday noqoto dhinac walba shacbigii Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin daryeel iyo dowladnimadii in la xoojiyo. siyaasadda Soomaaliya xilligan qaabka ay ku socoto. dad badan ayaa jahwareer ku dhacay oo la yaaban dowladda Xasan Sheekh hamigii iyo rajadii dowladnimo ee dadka Soomaalidu ay ka lahaayeen iyo xilligan maaragtay qaabka iyada ay u shaqeyso. bal adiga ayaan ku deel lahaa bal inaad faahfaahin naga siisid arintaas. waxa lagu tiriyaa maaragtay siyaasiyiintii ka soo horjeeday ururkii mise xisbigii nabad iyo nolol la dhihi jiray farmaajo madaxweynaha uu ka ahaa si qaas ah waxa kamid ahayd raggii maaragtay war meesha muslim ma jooga miya habeenkay dhahayeen Xasan Cali Khayre iyo maaragtay ii sheeg adiga mas'uuliyiin Cabdiraxmaan Abshakuur kamid yahay adiga aad kamid ahayd waa tii lambar 4 liidin ku rasaasiyay. xisbiga Xasan Sheekh madaxweynaha imanka jooga ayaa lagu tiriyaa inaad maaragtay raggii ugu firfircoona aad kamid tahay walow adiga maaragtay xil oo muuqdo rasmi aadan haynin. marka siyaasad ahaan waagii hore waxaan ognahay farmaajo inaad aad u dhaliili jirtay 24 saac wax ka sheegi jirtay aad la dagaalami jirteen aqaylin jirteen. haata maanta waxa aad leedahay afkaada aad ku sheegaysaa in xaaladda Soomaaliya cadow badan uu ku soo duulay Ethiopia maaragtay badii ay qaadan rabto maamul goboleedyadii maaragtay iyo dowladda federaalka xiriir wanaagsan aysan ka dhaxaynin dagaalyo maaragtay ii sheeg dagaal beeleedyo Soomaaliya uu ka jiro dowladii adiga aad taageereysay mise aad in badan u ololeysay waxa lagu eedeeyaa xitaa in oo maaragtay ku mashquulsan tahay dhul boob iyo maaragtay qabuur faagis iyo bal intaas oo dhan maxaad ugu jawaabi lahayd? horta markuu ugu horeyso sideedaba dhaliisha mar walba way jiraysaa dhaliishu waa iska caadi midda labaad aniga dowladii hore farmaajo maaragtay waa sax mucaarad baan ku ahaa waxyaabo fara badan waa ku diidanaa taas marka waxaa bedeshay dowladii Xasan Sheekh waa run Xasan Sheekh mataqaanaa saaxiib dhawaanahay waana taageersanaa waa dowladeedii qayb weyn aan ka qaatay mataqaanaa dhisideedii marka ma ahan marka nacayb dowlad mar walba qofka aad nacab tahay ama shakhsi la nacayo laakiin maamul xumo ayaa imaanayso tala loo baahan yahay dalka dowladnimada Soomaaliya waa la wada leeyahay cid walba way arkaysaa marka daliil weeyaan mooyaane macnaha cadow iyo sumanihin dalka Soomaaliya mataqaana qof walba rajo uu ka leeyahay waxaan jecelnahay wanaagga waxaan jecelnahay horumarka Soomaaliya mar walba dib ka dhacayo ama ha noqoto madaxdii ama ha noqoto siyaasiyiinta Soomaaliya ama shacbigiiba Soomaaliya maanta waxa weeye waa cadow baan ugu dhex jira waxa loo baahan yahay maaragtay dalkan inuu noqdo dal mataqaana oo dowladnimadiisa hanto. cadowgan aad ka sheekeynaysid muxuu yahay? cadowga horta sidaba cadow waa aragtay saad waxa u badan
يعني waxa weeye nimankan dhalinyarada ah ee al-shabaab oo runtii muddo dheer maartay dalkan maartay argagax iyo cabsi gelin waxyaabaha maanta dhacayo dalka la isku furmi laaya ama meel walba la tegi laaya waa cabsi darteed haddana dadkan waa dad la soo isticmaalay oo mataqaanaa diiniyan dad qorsho mataqaanaa waxay dadka ku wadaan aysan ahayn de wax mataqaanaa dalka u ron oo mataqaanaa dad la dilo dadka dhiigeeda la banaysto iyo cadow kale ah Ethiopia oo ayada laftigeeda maanta aan ka marnayn Soomaaliya sida mataqaanaa ay inoo hagardaami lahayd laakiin dawladda Soomaaliya waxaa laga rabaa markaa inay cadowgaas si uga kaashato waa in siyaasad qeexan oo hufnaan leh oo horumar leh oo aan la hurdin oo waxyaabo kale aan lagu mashquulin dalka marka mar walba markii xukunka qofka uu qabto waxyaabo fara badan ka hoos baxay ma garanayo ma la taliyaasha xun ma dadka mataqaanaa miyaanan arkin wixii la soo maray dawladdan macnaha Xasan Sheekh waa markii labaad oo dib loo doorto waxaa laga rabaa marka annagana aan doonaynaa marna moogto wax la salsalaaxo Xasan Sheekh waxaan talo ku siinaynaa in dalkan Soomaaliya dad badan baa mataqaanaa rajo weyn kale Soomaaliya qarannimadeena noo soo noqoto dawladdan gacan isku dhiibay ahayd tii farmaajo waddanka waxay gaarsiisay in dagaal ayuu ku sirtay laakiin maanta waxaan rabnaa wixii inaan ka meerno oo dadkii mataqaanaa waliba Xasan Sheekh uu yiri Soomaali la heshiisa caalamka la heshiisa waa sax eri wanaagsan waay inuu Xasan Sheekh waliba uu sameeynin dadkii farmaajo mataqaanaa inuu soo waxyaabo ka fara badan ka bedel maamul goboleedka sidoo u jiraan waa talo fiican waa laakiin waxaa la rabaa haddana dadka wixii oo macquul ah oo waddankan u shaqeyn karo ama aqoonteeda leh in meel walba loo dhiibo dawladda farmaajo waxaan ku nacayn dad mataqaanaa aanan ahayn quality ayaa dawlad maamul goboleed loo dhiibay mataqaanaa siyaasiyiin fara badan mataqaanaa loo dhiibay laakiin waxaa la rabaa isbedel waxaa la laakiin maxaa isbedelay Xasan Sheekh Xasan iyo wax yar oo kaliya u dhiman muddada uu hadda maaragtay xilkiisa maamul goboleedyadii waagaas jiray ayaa ilaa ay hadda joogo asoo danihiisa qaaska uu ka fiirsanayo dastuurkii iyo heerkii maamul goboleedyada u degsanaa asoo ka tallaabsaday Xasan Sheekh ujeedadiisa iyo waxa uu rabana ay tahay oo kaliya maaragtay ii sheeg in asiga maaragtay heer hoosaadyo asiga wato loo meel mariyo dadkaasna ay meesha iska sii joogaan marka ma dhihi karnaa Xasan Sheekh farmaajo waa ka sii dari doonaa oo farmaajo laayda ku dambayso waxaan horta Soomaaliya mar walba maaragtay dadka waa un dadkii leh dawladnimada Soomaaliya mar walba maaragtay madaxda Soomaaliya ama madaxweynaha maanta ugu sareeyo asiga dadaalo fara badan waa sameeyay arrimaha dibadda aad u soo xoojiyay laakiin mar walba يعني waxaa laga fikiray mar walba qof walba wuxuu rabaa dadka isaga ku dhadhow ama campaignkiisa in dalkii mataqaan loo dhiibo dadkii laakiin waddanka u shaqeyn lahaa ama waxyaabahan politic mataqaan ama hawshan shaqada yaqaano waddankii looma fiirinayo marka mar walba waxaa la sameynayaa qof walba danihiisa qaaska ayuu ka hormarinayaa midda dan guud madaxweynaha waxaan kula talin lahaa mataqaan waxa noo dhiman rajo fiican baan dalka leenahay taageeradaada waa nahay laakiin waxaan rabnaa waddankan Soomaaliya wuxuu u baahan yahay in hadda Soomaaliya aysan talaha fara ka bixin maamul goboleedyada sida Puntland oo hadda laftigeeda dawladda aad moodo inay xogaa ay iscolaadiyeen in la soo celiyo maamul goboleedyadana xilkii maadaama ka dhamaan waddanka waa inuu doorasho gala oo meesha laga tago si nabadana maartay waliba doorashadaas loogu dhawaaqo dastuurka Soomaaliya oo ahaa in qof iyo codna la sameynayo rajadaas hadda ma qabno saan hadda u jeedo waqtigan waa yar yahay haddii la sameyn karana fursad uu haystaa haddii uu hadda u diyaar garoobay Xasan Sheekh ma ogi laakiin dalkan mar walba waa inaan ka gudubno mataqaanaa waxyaabaha dhalanteedka realityada loo baahan yahay dalkan marka mataqaanaa waa in tanasul la sameeyo lagana fikiro dalkan maartay mustaqbalkiisii Xasan Sheekh marka haddii waqtiga uu ka dhamaado waxay noqonaysaa haddana meeshii qof cusub meeshii yimaado Soomaaliya mar walba iska qabsi iyo muran waxaas mar walba laakiin dalkan waxaa la rabaa inaan ka barano waxyaabihii la soo maray dhibaatooyin fara badan la soo maray mar walba meeshii inaan joogno maaha waa in isbedel dhaco nacayb iyo jacayl midna ma jiro dawladda Soomaaliya waxay ku qaldan tahay dadka dhan waa u jeedaan waa inay wax ka bedesho nidaamka iyo waliba nidaamka sida hadda wax u socdaan in wax weyn laga bedelo oo dalka maartay okay bashir siyaasiya tahay oo maaragtay in badan siyaasadda Soomaaliya u dhun duleela waxyaabaha aad is leedahay wax laga bedelo waa ay qaldan yihiin hal laba iyo saddex
maxaa ka mid ah? horta waxaa ka mid a dalkan dagaal uu ku jiraa. waxaa waaye dagaalka uu ku jiro waa in hadda shabaab waa lala dagaalamay laakiin ciidamo fara badan aa ku dhinteen. laakiin aniga waxaan dhaliilayaa ciidamada qaabka maaragtay loo agaasimay ama taliyaha ciidanka xoogga hadda hogaamiyo. waxaad moodaa runtii in isbedel lagu sameeyo. waxaa laga yaabaa dad badan oo khubaro ah oo ciidamada mataqaana shaqadeeda yaqaano in loo dhiibo si oo weliba oo ciidamada mataqaana qalabkoodii dagaalgelintoodii iyo istaraatiijiyadoodii in wax weyn laga bedelo wasaaradda gaashaandhigga. mataqaana taas waxaa waa muhiim. waxaa yeelay dalka waa dadkii difaaci lahaa. ciidamadan hadda aad baa loogu soo dadaalay dowladdii hore. ciidamo fara badan baa la dhisay. ciidamada mataqaana turkiga noo tababaray. waa ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay shaksi male. ciidamada marka waa in moralka iyo niyadda loo dhiso. dalkaana cadowgaasay nooga qabtaan waa in ciidamadeena xoogga la geliyo oo maaragtay xagga dhaqaalahana runtii aad maaragtay ay u helaan saanadooda iyo amnigoodii iyo caafimaadkoodii. marka halkaas habacsanaan baa ka jirto. halkaas waan ku dhaliilaya dowladda. maxaa kale? waxaa kaloo jiro midda kaloo dowladda laga doonayo waxaa waaye waxaa cabaadayo xagga bulshada oo hadda caasimadii ama shacbigii waxay ka cabanayaan dhibaatooyin fara badan. hadday noqoto shaqo la-aan, hadday noqoto wasaarad sida la sheegay. waxaasna waa shaqo la-aan oo ma ahan muhiimaddu in dadkii maaragtay shaqo abuur loo sameeyo oo madaxweynaha soo ka dhawaajiyena maaragtay inay shaqaystaan dhalinyaradu ku gubaabiyey. laakiin dalkii waxaa laga shaqeyn karaa in wasaaradaha iyo dowladda mataqaanaa meelaha ay dowladda ay leedahay in dadkii shaqo abuur loo sameeyo oo dhalinyarada dowladda ay galaan oo mataqaanaa dadka dibadaha laga keenaya ama dadka qurbo joogta ah oo maaragtay ama dadka yacniga mushaar isaga qaata laakiin dadka gudaha joogo dhalinyarada markay wax ka soo baxaan inay xafiisyo loo sameeyo oo arrimo bulshadeed loo sameeyo si dadkii ay shaqo loo abuuro oo dalkaana shaqay u helaan. maxaa yeelay dhalinyarada waa dhalinyarada mustaqbalkii si loo tababaro si dalkan mustaqbalka dambe ee ayaga hoggaanka u qabtaan. marka waa in dhalinyarada runtii moralka loo dhiso. dhalinyaradana maaragtay taqaana aan la mare habaabin oo aan waxyaabaha qaarkoodna maaragtay ama ciil aysan gelin ama ay dalkii ka tahriibin. dalka waa xooggii. dadka waa in shaqo loo abuuro oo runtii madaxweynaha taasna waxaan ku dhiirigelin lahaa in dhalinyarada maaragtay dib loo fiirsho. wasaaradaha weliba arrimaha gobolka banaadir oo meel loo furo xafiis oo shaqo abuura qofka markuu wax soo barto suu dalkiisa uga shaqeeyo oo shaqadii uu yaqaanay ama uu soo barto uu ku shaqeeyo. waa tahay bashir, aada iyo aada u mahadsan tahay. su-aasha ugu dambeyso, maxaad maaragtay ii sheeg adiga aada kula talin lahayd dadka soomaalida ah guud ahaan iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maaragtay hadday noqon lahaayeen qurbo joog iyo hadday noqon lahaayeen maaragtay qorax joog dadka oo gudaha ku nool, maadaama soomaaliya 30 sano iyo maaragtay wax ka badan dagaalo oo qabaa'il iyo maaragtay dhibaatooyin badan lasoo maray, weli ay muuqato maaragtay in maalin kastoo la leeyahay reer hebel iyo reer hebelaa isku dhacsan, reer hebelaa la raacday, reer hebelaa wax laga dilay la leeyahay. maxaad tale iyo tusaale aada usoo jeedin lahayd maaragtay maadaama in badan adi aada ku nooshahay mise aada ku nooleed waddanka Switzerland oo maaragtay federaal ah, in badanna maaragtay dagaalo iyo dhibaatooyin maaragtay waddankan taariikhdiisa xog badan aad ka haysid. dadka soomaalida ah maxaad u sheegi lahayd? suuragal ma tahay haddii ay nabad wada qaataan oo ay wada heshiiyaan in maaragtay barwaaqo iyo horumar ay gaari karaan sida dalka Switzerland oo kale? waayo waxaan ognahay Switzerland oo dhan la sheegayo muqdisho iyo maaragtay ii sheeg adiga beledweyne inta maaragtay ay la eg tahay maaragtay inaysan la ekeen ay ka yar tahay, laakiin haddana ay tahay maaragtay waddan oo loo soo shaqo doonto oo maaragtay adduunka dhan maaragtay heedihiisi iyo maaragtay ay usoo kala bartamayaan. marka Soomaali suuragal ma tahay haddii nabad ay wada qaataan colaad iyo dhibaatada iska joojiyaan Swiss oo kale inay noqoto? xaqiiqtaas waxaa waaye waxay ku xiran tahay annaga horta nasiib darradan haysato kulliba dadkii cadow baan kulliba aaminsanahay inay ku dhex jiraan oo dadkii kala hayo. laakiin runtii Soomaaliya waxaan kula talinayaa in maanta aanu 30 sano iyo wix ka badanba
dalkeenna uu ahaa colaad dhibaato qax mushaakilaad waxaasna waxaan uga bixi karnaa haddana runtii waa in qof walba oo Soomaali ah inuu ka shaqeeyo sida uu nabad oo walaalkiis ama dariskiisa ugala noolaan lahaa colaadaha aad soo laabtayna dadku meel kale aadi maayaan dalkan barwaaqadiisa runtii wax la soo koobi kara ma haysano nolosheenna waxaan u maleynayaa adduunka anaga noo soo shaqo tagi lahaa laakiin nasiib darro siyaasiyiinta oo ayagana maaragtay noqonay caadi qaatayaal oo jeebkaas inay wax ku ritaan mooyee dadka intay horumari lahaayeen ama ay ka tegi lahaayeen magac iyo sumcad waxa waaye nolol iyo waxay raadinayaan jeebkooda in buuxo ani waxaan aaminsanahay noloshaas waa imaanaysa cid walba oo Soomaaliya gaajadan waa laga baxayaa nabadda ayaa ah runtii muhiimadda in la saaro cid walba meel kastoo joogo Soomaalina hal luuqadaan leenahay hal diin baan leenahay walaalo baan nahay dad wada ma taqaan xil iyo magaciisa aan soo nahay kalama guurina kalama tagayno waxaan kula taliyaa dal iyo dibalba ha laga shaqeeyo nabaddu waa midda horseedi karta amni horumar sumcad iyo weliba ma taqaanaa hankeena qarannimada waa soo noqonaa marka meel walba joogtaan waxaan ku talinayaa colaadaha ka socda meel walba hala joojiyo ani weligay kama qayb qaadan in dagaalo la huriyo mana taageersan marka Soomaaliya waxaan u rajeynaa ilaahay nooga baryaa aniga kulli inaan u duceeyo mooyaane waxyaabahan haddaan qaban karo ama aan dadka ay nala fahmi lahaayeen waxaan jeclaan lahaa barwaaqadaas iyo nabaddaas Soomaali meel walba joogto in ilaahay uu siiyo haddana waxaan u rajeynaa inta dhiman in ilaahay tusiyo xaqa siyaasiyiinteenana inay ka tagaan weliba madaxweynaha iyo dowladda hadda maanta dalka hayso ilaahay inay ka cabsadaan oo dalkan ay badbaadiyaan dadkuna ay dhax soo dhigaan gool oo ah midnimada aysan qof inaysan ku colaadinayn qofna aysan mataqaanaa aysan ku riixeen dalkan waa la wada leeyahay qof walba oo Soomaaliya ayaa xuquuqda Soomaaliya iska leh marka waxaan rajeynaa in aad qaadataan aniga kulliba taladeeda madaxdana ay dhageysanayaan ama meel walba joogtaanna nabadda laga shaqeeyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum